Audio Jungle. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. Qoys Soomaali ah oo booliska Norway ay dhibaateeyeen oo 24 saac gudahooda ku taajiray. Maxamed Jaamac waa aabe Soomaaliyeed oo isaga iyo qoyskiisa ay ku nool yihiin magaalada Oslo ee dalka Norway. Dhibaato ay u geysteen booliska dalka Norway ayaa u horseeday in muddo 24 saac gudahooda ay ku taajiraan isaga iyo xaaskiisa kadib markii lacag looga ururiyay internetka. Caadi ahaan dalka Norway ama dhammaan dalalka Yurub, qofka qaxootiga ah ama qofka aan dalka u dhalanin guri kama iibsan karo. Sidaas darteed, deegaan ahaan qofka waxaa u furan laba arrin midood: in uu dego guryaha ay dawladda maamusho, waa haddii uusan soo gelin qofkaas dhaqaale ku filan uu guri ku kiraysan karo, ama qodobka labaad oo ah in uu kiraysto guri. Haddaba aan u dhaadhacno qisadeena maanta. Qoyskan oo deganaa guryaha ay maamulaan dawladda hoose, gaar ahaan degmada Toyen ee ku taala caasimadda dalka Norway, ayaa la kulmay dhibaato kaga timid dawladda hoose kadib markii dhaqaalaha soo galay qoyskan bishii la soo dhaafay uu gaaray darajadii guriga looga saari lahaa. Maxamed iyo dawladda hoose waxay ku heshiiyeen haddii dakhliga soo galo bishii uu dhaafo wax ka badan 15 karoon oo u dhiganta $1,500 Mareykanka ah, inuu raadsan doono guryaha gaarka loo leeyahay ee kiradoodu ay qaaliga tahay. Waa sida ay ku heshiiyeen kooxda dawladda hoose iyo Maxamed. Maadaama uu soo galay dakhli ka badan intii lagu heshiiyey, maamulka dawladda hoose waxay ku wargeliyeen inuu banneeyo guriga. Aabaha guriga, Maxamed Jaamac, wuxuu warqad cabasho ah u diray dawladda hoose kana codsaday in loo naxariisto oo aan guriga laga saarin maadaama lagu jiro xilli uu adduunka saameeyey fayruska safmarka ah ee COVID-19, sidoo kalena qabow daran uu ka jiro dalka, isagana ay u joogaan carruur aad u yaryar oo aan qabowga u dulqaadan karin. Dawladda hoose ayaa ku gacan sayrtay cabashadii aabaha Soomaaliyeed, waxayna go'aan ku gaareen in loo diro boolis si guriga looga saaro, waxaana bannaanka loo soo saaray qoyskii xilli uu jiro qabow aad u daran. Boolisku waxay ku qanciyeen qoyska in ay haystaan amar dawladeed, isla markaana aysan waxba ka bedeli karin, waxayna qoyska u soo bandhigeen inay raacaan oo ay intii habeenkaas ah seexdaan goobaha la seexiyo dadka wadooyinka laga qaado ee sarqada ka badato ama isticmaala maandooriyaha xad-dhaafka ah. Maxamed Jaamac iyo qoyskiisa waa ay ka diideen booliska inay halkaas u raacaan, isla markaana ay seexdaan goobtaas. Gabar aan magaceeda la faafin balse reer Norway ah oo deris la ahayd qoyska ayaa dhibaatada qoyska ay u geysteen booliska iyo waxa ay ka ogtahay xaaladda ku faafisay baraha bulshada. Taasna waxay keentay in dawladda hoose ay la kulanto dhaleecayn shacabka kaga timaada ilaa laga codsado inay iska casilaan xilka. Gabadha waxay dadka reer Norway ka dalbatay in qoyskan laga bixiyo lacagta dibaajiga ah ee guryaha kirada la isaga qaado oo dhan 50,000 oo karoon, balse ay saacad gudaheeda dadkii ku bixiyeen lacagtii 50,000 ahayd. Waxayna ku qasbanaatay inay beddesho mowduuca sheekada ilaa ay gaarsiiso in loo iibiyo guri. 24 saac gudahood waxaa loo ururiyay lacag dhan 1 milyan oo karoon, waxayna maamulka dawladda hoose hadda kala shaqaynayaan inuu helo guri uu iibsado si ay xalka dhibaatada qayb uga noqdaan. Aabe Maxamed Jaamac iyo hooyo Aamina waxay heleen garabka dadka reer Norway, waxaana loo ururiyay lacag aan caadi ahayn. Dawladdu ma canshuuri doonto sida la sheegay. Sidoo kalena website-ka IPAS ee lacag ururinta laga sameeyey ayaan isna khidmad ka qaadi doonin. Haddaba maxaan ka fahmaynaa qisadan ama sheekadan? Haddii aan bini aadam nahay, awooddeenu ma gaarsiisna inaan ogaano waxa wanaagga noogu jira iyo waxa aan wanaagga noogu jirin. Si kale markaan u dhigo, waxaa laga yaabaa inaan jeclaysano shaygaasna uusan wax wanaagga noogu jirin. Si la mid ah, waxaa laga yaabaa inaan shay aan necbaysano isla markaana uu wanaag noogu jiro. Waatan Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku leeyahay fi suurati al-Baqara: wa casaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa casaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamuun. Allahu akbar. Allah isaga oo si toos ah noola hadlaya ayaa wuxuu yiri: waxaa laga yaabaa inaad nacdaan shaygaas oo khayr idinku jira, waxaase laga yaabaa inaad jeclaataan shaygaas oo aan wax khayr idinku jirin bal ee shar idinku jiro. Ilaahay ayaa ugu xadan ogeyn. Markaan qisadeena u soo laabano, Maxamed Jaamac oo ah wiilka ay qisadan ku dhacday, waxaa laga yaabaa amarkii dawladda kaga yimid ee ahaa inuu guriga ka baxo inuu u arkay shar ama uu walwal badan ku hayay, laakiin arrinkaas uu u ahaa khayr, isla markaana uu ku helay garab istaag walaalihii ay garab istaageen reer Norway, isla markaana uu ku hantiyey guri isa gaar u leeyahay. Dab walaalayaal, qisadeena maanta halkaas ayay ku eg. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar. Haddii aadan ka helinna kuma qasbanid. Sidoo kale share garee. Waad mahadsantahay. Assalaamu calaykum.